السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملكستيات جوتان كسر هذا برنامج سبورتي على ملكستيات كلا سعوتان برتنا يوتيوب كي عيارها لاتس تيوبس يولا مغال عصبي وسلمان تجيبي هم ببرنامج سبورتي وعن كودونا ورك ودن بعيارها سوى حنين توبرا كودا كوبدا عكت بي اس جي او شغله لغا عياريي شان ارمود ادم waxba koogeen ciyaaryahan Bruno Fernandes waxaa kale oo eegayna kooxda kubadda cagta Barcelona oo si waa loo doonayso ciyaaryahan Rashford iyo ciyaaraha kooxda kubadda cagta United Ozil oo sir qarsoodi la kulmay wow barnaamijkeeda kala socon doonta soo kale waxaan eegaynaa ciyaaryahan McTominay waxa ka hadlay xaaladiisa tababara xulka Scotland soo kale waxaan eegaynaa squadka koobka Carabao Cup ee semi-finalka wow laba koox weyn isku magaala usay barnaamijkeeda kala socon doonta haddaad nagu cusubtahay ma tahay marka horeysa soo booqatay channelkeena fadlan subscribe noo saar soo kale hilmaan gambalelka saad u hesho muuqaal kasta aan soo dhigno barteena ciyaaraha latest tubes iyo waliba muuqaal cusub oo cusub leh iyo waliba waxaad soo kale taad barnaamijkeena maanta ku maqli doontaa warar kale oo dheeraada siba falqaynta ciyaaraha siba kuugu dambe ayaad kala socon doontaa barteena youtube-ka ciyaaraha latest tube hamoganin nala soco ciyaaraha latest tube iyo waliba muuqaal cusub oo xiiso leh iminka ku soo dhawaada wararka ciyaaraha oo fidsan nadiga kooxda kubadda cagta PSG ayaa shaqada ka carisay macalinkooda Thomas Tuchel kaasaad moodaa in ay maanta ku dhawaaqeen inay shaqada ka xiriyeen tababare Thomas Tuchel waxa iminka u diyaarashadaas inuu qabto tababarihii hore kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur Pochettino kaasaad moodo inuu yahay musharaxa aad moodo inuu yahay kan qaban doono shaqada kooxda kubadda cagta PSG ee karsan dalka Faransiiska Tuchel ayaa kaga soo biray kooxda kubadda cagta PSG cagayo nadiga Dortmund intuu joogay kooxda kubadda cagta PSG ayuu gaarsay guulaweyn si wuxuu gaarsay Champions League finalka qaybta ugu dambeeyay oo aysan ibid gaarin kooxda kubadda cagta PSG soo kale Tuchel ayaa iminka gaarsay kooxda kubadda cagta PSG ilaa iyo 16 Champions League waxaan soo kale ka saacday kooxda kubadda cagta PSG inay ku guuleystaan sidoo koobka Liwanka dhowr jeer socdo iyo waliba koob kale laga ciyaaro dalka Faransiiska Tuchel ayaa moodaa soo kale inuu hore u soo maamuli jiray kooxaha Borussia Dortmund Mainz iyo waliba koox kale waana tababaro u dhashay dalka Germany iminka waxaad moodaa inuu yahay musharaxa kaliya iminka u baahantay kooxda kubadda cagta PSG uu yahay tababarihii hore kooxda kubadda cagta Spurs bal maxaad ka taqaantaa waxaa jirto 5 arrimood oo sira oo ku saabsan ciyaaryahan Bruno Fernandes u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aanan midda koowaad waa ciyaaryahan awal ka ciyaari jiray difaaca dhexe iminka wuxuu ka ciyaara qadka dhexe midda labaad waa ciyaaryahan runtii inta badan jecel lambarka 8 ama tira ay ku jirto 8 iminka wuxuu ciyaaraa ama qaatiya funaanad United ay ku qorantay lambarka 18 mar lagu waday arintaas wuxuu yiri runtii lambar 8 awal waxa ka ciyaari jiray aabahayga waagu ciyaari jiray kubadda cagta soo kale 18 ka wato waa laacib aan taageeri jiray wuxuu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta United kaasina waa Paul Scholes sida ayaan u qaatay yiri lambarka 18 iyo lambarka ay ku jira lambarka 8 midda kale midda saddexaad waa ciyaaryahan inta badan jecel in uu noqdo nin madaxa ama uu noqdo captain ama kooxda hogaamiyo taasina ayaa wuxuu aad u jecel yahay oo sirha ku jira ciyaaryahan Bruno Fernandes midda afraad aan eegayno waa runtii nin bartay luqadda Talyaaniga isagoo aan cidna barin xilliguu joogay dalka Talyaaniga oo qandaraas 5 sano oo u saacay kooxda kubadda cagta Nerevara oo ka ciyaarta heerarka ugu hooseeya midda shanaad aan eegano waa ciyaaryahan runtii aad moodo inuu yahay mid the specialist dhanka dilayga gool kulaadka markuu laaday gool kulaadka waxaan moodaa inuu sameeyo farsamo aad u wanaagsan kaasoo inuu kor u boodaya isoo adeegsan lugtiisa midig marka waa ciyaaryahan runtii ay ku jirto shantaas oo sireed aan iminka halkan ku sheegnay لاعب كوحدة كبدا عكتا مانشستر يونايتد راشفورد ayaa waxa si waa loo doonaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa sheegeen ciyaaryahankan ay u baahan adeegiisa soo kale waxa uu diyaarin kooxda kubadda cagta United inay siiyaan 3 ciyaaryahan mid kamid ah qaataan kuwaas oo kala Philippe Coutinho Dembele iyo waliba ciyaaryahan Griezmann kaas United ay ka doonaan ciyaaryahan ay doonaan soo kale ay kooxda kubadda cagta Barca ay ugu sii daraan lacag kale oo waaliya si ohlan
adeega ciyaaryahanka u dhashay xulka qaranka Ingiriiska waana ciyaaryahanka iminka u goolasha badan kooxda kubadda cagta United markii laga soo tago ciyaaryahan Bruno Fernandes oo hogaaminaya xagga gool dhalinta naadiga United marka Rashford waa ciyaaryahan ka soo baxay akademiyada kooxda kubadda cagta United waa laaxib inta badan ay taageersan u baahan jamaahiirta kooxda kubadda cagta Reds haddii aan xagga ku laabano aan eegno ciyaaryahan Mesut Ozil waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta The Gunners ama Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa ku jirin safka rasmiga kooxda kubadda cagta The Gunners ama Arsenal aad moodaa inuu soo kaleeto ka mid yihiin ciyaartoyda Arsenal oo mataleysa Premier League soo kaleeto Europa League balse waxaa laga yaabaa in lagu soo daro bisha Janaayo kadib markii la gudbin doono ciyaartoyda u matali doonto kooxda Premier League iyo waliba haday noqoto Europa League iyo kulan kasta oo la ciyaarayo marka Ozil ayaa waxa shaleeto oo si qarsoodo la kulmay maamulaha guud ee kooxda kubadda cagta Fenerbahce ee ka tirsan dalka Turkishka isagoo doonaya ama la filayo inuu ku biiro Super League laga ciyaaro dalkaasi Turkiga waxa soo kaleetay ay isla soo qadeen mishaarka oo Mesut Ozil ka qaaday la kooxda kubadda cagta Fenerbahce kaas oo laga yaabo inuu dhimo boqolkiiba 35 isagoo laga ka qaadan doono hadduu ku biiro kooxda kubadda cagta Fenerbahce 200,000 toddobaadkii halka uu hadda ka qaado kooxda kubadda cagta Arsenal 350,000 marka waxaad muddo taasina inay u fiican tahay Ozil inuu aado xagga iyo dalka Turkiga waxa soo kaleeto aan eegaynaa xaaladda ciyaaryahan McTominay ayaa maalmahan aad ugu soo dhaxmuuday kulamada kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaarayso siiba qad ka dhacay tababaraha xulka qaranka Scotland Steve Clarke ayaa sheegay in ciyaaryahanku ku fiicay inuu ciyaaro xulkiisa qaranka Scotland qad ka dhacay isagoo iminka u ciyaarayo Scotland qaybta difaaca marka wuxuu sheegay in ciyaaryahankan uu ku fiicay inuu ka ciyaaro qad ka dhacay qaabka uu iminka United u ciyaarayay mid fantastiga mid inta badan ay soo jeetay jamaahiirta kooxda kubadda cagta United iyo waliba dhammaan taageerayaasha xulka qaranka Scotland marta Mr Clarke ayaa sheegay in uu bedeli doono qaab ciyaareedka ciyaaryahan McTominay xagga iyo culalka haddii la eego siba xulka qaranka Scotland uu u ciyaaro oo ka tirsan UK ugu dambeyntii waxaan eegaynaa isku aadka Europa isku aadka Carabao Cup oo la sameeyay ciyaaryahan McTominay iyo waliba Fred ayaa ka mid yihiin ciyaartoyda matashay kooxda kubadda cagta United oo wajahday kooxda kubadda cagta Everton iminka isku aadka ayaa soo baxay maanta waxaa isku beynay kooxda kubadda cagta Tottenham iyo Brentford halkii kooxda kubadda cagta United ay ku beegantay kooxda kubadda cagta City kaasoo la dhigi karo waa Manchester derby waana kulan caadi ahayn waana kulan derby kulankaas ayaana aad moodaa inuu yahay mid fantastiga oo dhammaan labada jamaahir ay wada sugayaan kooxdii badisa ayaa waxay si toos ah u aadi doontaa garoonka Wembley 25 bisha afraad sanadka 2021 marka United ayaa moodaa qaabkii ay ugu soo badiyeen kooxda kubadda cagta Everton inay tahay qaab aad u wanaagsan oo ay tahay isku xirka United ay tahay mid runtii oo la yaab leh marka kulanka City ayaa la arki doonaa kooxdii soo badin doonto waana kulan ay ku beegantay in la ciyaaro 5 bisha koowaad sanadka 2021 waxaana kulankaas aad moodaa inuu yahay mid labada kooxoodba faa'iido ah shanta ciyaareedka ugu dambeeyay aad moodaa in kooxda kubadda cagta Man City ku guuleysteen 4 kamid ah halka kan kale ku guuleysteen kooxda kubadda cagta Arsenal soo kaleetay kooxda kubadda cagta Man City ayaa way aragdo dheer u leh inay ku guuleystaan koobkan balse la arki doonaa 5 bisha koowaad cidii balse ayaa si toos ah doonta garoonka weyn ee Wembley laga ciyaari doono finalka barnaamijkii sported kala socoteen ciyaaraha la teesto ciyaaray waana inta farsamadii Professor Isaac iyo codkii Bayos